ولذلك هدaynu rabno quluwiga inaynu cilaajino qaabka reer galbeedku ay u cilaajinayaan ma cilaajinayo qaabkay u daweeyaan ee xadhig iyo dil iyo afkaarta sideedaba xoog laguma daweeyo afkaarta waxa la yiraahdo qofka maskaxdiisa gala qofka ku qanacsan waxa kan waan ku dilayaa wax badan kama tarto isaga baa laga yaabaa inuu dhibasho diyaar u yahay maxaa dilaysaa dab isagu dhibasho diyaar u yahay maxaa dilistaadu ay samaynaysaa qofka bini aadamka waxa lagu qancin kara waxa weeyaan mabaadi'dan in lagala niqaasho in lagala doodo in wax la baro cilaajka qudhe la garan kara tatarruf ama quluwi lagu daweyn kara waxa weeyaan dadka ahlu cilmiga in loo ogolaado inay wax sharxi karaan wax akhriyi karaan wax daraasayn karaan reer galbeedku cagsiga ay u carareen oo ah wixii diin ku abtirsada khaasatan inta culimada in afka laga xidho kuwan yaryar iyo intan in xoog lagu daweeyo inay sii karta mooyaane wax iska bedelayaana ma jiro meel ay cilaajiyeen oo dunida ka jirtaana ma jirto inkastoo lagaba yaabo inay iyagu gardaran yihiin inta badan galbeedku siday u wadaan haddana meel ay cilaajinayaan ma jirto haddii la rabo in cilaaj la sameeyo markaa cilaajku waa fi bilcilm nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii tatarrufka sameeyey ama quluwigu ku dhacay mana xidhin mana laynin mana waxna kale wuxuu sameeyey inuu tarbiyeeyo inuu wax u sheego in cibaadadu siday saxa ku tahay tilmaamo in waxa saxa iyo waxa qaladka uu sheego idan qaabka qudhay wax u saxmi karaan waa in dadka diinta ahlu cilmiga la fasaxo inay wax sharxi karaan wax tarbiyeyn karaan wax badan ay akhri karaan murshidka rasmiga baa masaa'ilkana waa masaa'il cilmiya sharxi kara dhalinyaradana waxaan kula talinayaa dhammaantood da'yaridu iyo tajriba yaridu iyo aqoon yaridu intuba waxay keentaa in badan inuu qofku kaco oo kufo walidaalika waxa u baahantiin cilmiga si mikro yaynaydan u gelin si makro ah inaad u gasho si ballaadhan waxaa laga yaabaa mas'ale iyo inaad 2,000 oo kitaab ka baxdido intaasoo quri kuu muuqato laakiin noloshu hal mas'ale maaha noloshu way ballaadhantay ninka caalimkiina si weyn oo ka ballaadhan saad wuxuu eegayso wuxuu eegaa dhalinyaradana waxaan kula talinayaa dadka ahlu cilmiga diinta ka qaata oo waliba kuwa ahlu cilmiga diintooda lagu kalsoon yahay kuwaasi diinta ka qaata quluwiga sida qudhe lagaga bixi karaa markaasi waa cilmi la helo iyo murshid qof ahlu cilmiya oo wax tarbiyeeya oo tarbiya saxiixa wax ku tarbiyeeya وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين